ololihii doorashada ee magaalada Minneapolis mayorka tartankii mayor qofka noqonayo 4 sano ee soo socoto ama ishardankii iyo loolankii ayaa soo dhamaanayo oo gabagaba ku sii siqahayo ama saacadihii ugu dambeeyay kadib markii ugu dambeyn Ilhaan Umar iyo waliba la jirkeeda Umar Fateh ay codeeyeen oo ay ka codeeyeen goobihii ama Hennepin area ay ka codeeyeen oo codbixinta ay ka socotay si actual ah oo hadda codadkii ayaa socdo oo waxa lagu siqayaa saacadihii ugu dambeeyay maadaama ololihii saacadihii ugu dambeeyayna sidoo kale Ilhaan Umar soo koobtay Ilhaan Umar ayaa noqotay codka ugu dheer oo maanta Umar Fateh uu ku tartamayo oo duqa magaalada Minneapolis uu ugu cadcad yahay asaga ilaa iyo hadda inta la soo gudbiyay ee xogta laakiin Somali badan oo waxa arkayay hab qabiileysan oo soo horjeedo oo faafinayo balls khaldan lacago la dul saarayo qofka ay rabaan in uu mayorka noqdo balse ballska saxda aysan waxaas ahayn oo ay tahay lacago macnaha qofka aad jeceshahay inuu mayor ku soo baxo la kor saarayo ayaa macnaha ay sheegay baraha bulshada la wareejinayaa sida aad aragteen waxyaabahaas ayaa kamid ah waxyaabaha laga yaabo in maanta ay khalkhal geliyaan ama ay shaki ku abuuraan Soomaalida sida fiyow macnaha u fikirayso oo qaabka Soomaalinimada ah ugu codeynayso Umar Fateh Ilhaan Umar ayaa ugu dambeyn xeerkii ugu dambeeyay dhiiga Ushubtay Umar Fateh oo garabkeeda aan lagu wayn laakiin waxa ceeb weyn ah maanta fanaankii Soomaaliyeed ee ilka casaqays in uu ka soo horjeedsaday doorashada Umar Fateh waxa la sheegayaa in isdaad raacin ay tahay waxyaabaha noocaan ah laakiin uu cad yahay Umar Fateh sida horey u sheegnayna Soomaalidii ugu badneed ayaa soo baxday oo codeysay laakiin waxaan la hubin in codadkaas ee Umar Fateh boqolkiiba boqol aadahayaan laakiin sida aan ognahayba Umar Fateh waxyaabaha lagu mucaaradayo ayaa waxa kamid ah inuu taageeray gabadhii Ilhaan Umar ka hoos shaqeynaysay ee Caasho uu taageeray oo ward 10 ka tartamaysay lana tartamaysay Nasri Warsame arintii ayaa qabiil loo bedelay oo waxa la leeyahay asaga iyo Ilhaan Umar waagaas waxay la safteen gabadhaasna sida aan sheegnayba wada shaqeyn ayaa Ilhaan Umar Nasri Warsame ayaa wuxuu ka tirsanaa marka ayada uu ku tartamayay kaarka Republicanka sida ognahayna Minnesota waa blue state oo Soomaalida ama progressive dadka ah ama warsocodka ahba ma ogolo Republican ama qof kaar Republican isticmaalayo in uu ku soo baxo xubin golo deegaan Allah ka dhigay Minneapolis ama Minnesota guud ahaanba ka tirsan may ogolo sababtoo ah kaararka majority-ga waxa leh Minnesota oo dhan dimuqraadiga ah marka arintaas la ajligeed ayay Ilhaan Umar ayada oo waliba xoojinayso ajendaha maadaama kaarkan dimuqraadiga ay u isticmaalayso oo kaar ay ku soo galayso uu yahay oo ay u isticmaalayso ay kaarkeeda iskaga gubin oo dimuqraadiga ay u aamineen daraadeed ayada iyo Umar Fateh oo waliba hadda isku xisbi ah daraadeed ayay gabadhaasi ugu codeysay laakiin waxa xaqiiq ah Nasri Warsame marka ayada ah hadii uu la imaan lahaa kaar dimuqraadi ah in kal iyo laab ay u taageeri lahayd oo wax xaqiraad ah oo maanta Soomaalinimo ee dhiig ugu shubi lahayd sida haddaba ay u sameynayso Umar Fateh bal la daawo muuqaalkan quruxda badan Ilhaan Umar iyo waliba sida ay ugu ololeynayso oo macnaha ay sheegay aan horey loo arag sidoo kale goobta codbixinta ay isla tageen ayaga oo laafiyoonahayo oo macnaha ku faraxsan in ay macnaha ay sheegay codkooda ay dhiibtaan laakiin ninkii Jacob Frey ahaa ayaa wareersan oo ilaa iyo hadda waji farxad leh aan laga arkin markii laga reebo Somali badan oo taageertay ama u durbaantuntay taa waxay ku tusaysaa kalsoonida ka muuqato sidoo kale Umar Fateh qofka guuleysanayna uu iska cad yahay in uu asaga yahay waxa ceeb weyn u sugnaatay Soomaalida maanta Jacob Frey bumbuunayso oo qaab qabiil ayaga oo aan macnaha xog ogaal u ahayn ama aaga doorashada ay ka dhacayso iyo magaalada Minneapolis iyo aaga waliba Minnesota aana joogin oo waxaan aana la falgelin fahansaneen waxyaabaha ka imaan karo ninkan Jacob Frey ahaa ee 7 sano Minneapolis madaxa ka haystay oo aana waxba ka qabanin ishay Uber driverada dhalinyarada aana waxba u qabanin dadaalkoodina hal bacaad lagu lisay ka dhigay asaga oo wax macnaha ay ishay ixtiraam aan u muujin sharciyo fada badan oo housingka ay ku jiraan hor istaagay oo in la baas mariyo ka diiday golaha deegaanka iyo waliba heer state in loo sii gudbiyo in uu ku soo noqonaynin oo dadkii ay isdhibsadeen waa dareemi kartaa qof sanadkii 8aad uu u socdo duq magaalo in uu ku sii socdo in uu ka sii promote gareey ayaa la rabay balse waa laga aamusnaa oo cid ilaa iyo hadda doorasho rasmi ah oo kula tartantay ma jirto ama loolan sidan u adag la gashay marka
waan sugaynaa booliska rasmiga ah inta ay ka soo baxayaan saacadihii ugu dambeeyay ayaa lagu sii suqahayaa doorashadii waa gabagabo xamaasadda ayaa aad u kacsan Soomaali meelaha ka qalqayliso oo waxa arkay propaganda iyo dacaayad faafinayso ama qabyaalad iyo qabiil wax ku saabsan oo aan macnaha ay sheegay fildiga waxaan ay ka dhacayaan ba aan fahan u lahayn oo gobolkaana aan ka soo jeedin ayaa dadka ugu orkacsanahayo qaab qabiil ama uga hadlahayo bal ila daaw muuqaalkan quruxda badan iyo ilhaan Umar qaabka ay ugu kaambeen gareynayso wiilkii Soomaaliyeed Umar Fateh. When we fight, we win. When we fight, we win. When we fight, we win. It is so great to be here with you all, Minneapolis. Looking around to all of you, I can tell that change is coming. Change that is so desperately needed. Our city deserves a fighter who will unapologetically stand up for working people and who meets this pivotal moment in our city. That fighter is Omar Fateh. As a Minneapolis resident, I could not be prouder to support Omar because this city needs a leader who will transform Minneapolis and make it work for everyone, not just for the wealthy and the well-connected. Minneapolis is becoming more unaffordable every single day. People are struggling. People are working longer hours, paying higher rents, and still struggling to make ends meet. We want every single person who loves this city to continue to live in this city. Omar has a plan to increase the minimum wage to $20 an hour and pass rent stabilization. Because as you know and I know, no one working a full-time should struggle to call Minneapolis home. He is not only has a bold vision to lead our city, he has a proven track record of success. When Democrats won the state government trifecta, Omar delivered transformative change for the people of our state. Omar didn't just talk about change like some people do, but he knows what it means to deliver real results. He fought to make college more affordable. When he made a promise to Uber and Lyft drivers who demanded dignity and fair pay, he did deliver on that promise. When he realized that too many young people in our community were dying of fentanyl overdose, he led the effort to save lives by legalizing fentanyl test strips. And he worked to make sure our economy works for the people who actually make it run. This is the vision that Omar has brought and the vision that he will bring to City Hall. He understands the struggle of working people and immigrant families. He knows billionaires are raking in more and more wealth that comes from the labor of people struggling to make ends meet. That ain't right. And because he understands this moment, he will fight to build a Minneapolis where working families can afford to live, where our rights are protected, and where public safety means care, not crackdown. Minneapolis, I tell you this, I have hope today. I am hopeful. On Tuesday, we can turn the page on broken promises and endless vetoes. We can choose a leader who will maintain the status quo, or a leader who will transform our city for the better. We can choose a leader who will cater to the special interests, or we can choose a leader who refuses to take corporate PAC money. We can choose a leader who will side with developers and big corporations, or a leader who will fight for working people who actually live in the city. For me, the choice is clear. Omar will be the mayor
who makes it so that people want to live here, raise families here, and start businesses here. So now, let us step up. Now is the time to organize, to vote, to tell 5 of your friends to vote, to rank Omar Fateh as your #1 choice as the mayor of this beautiful city of Minneapolis. We can vote now until Election Day at the Minneapolis early voting centers. Let's make history, Minneapolis. Let's build a city that works for all of us. Let's rank Omar Fateh as your first choice for the mayor of Minneapolis. Thank you so much. And now it is my incredible honor to introduce the next mayor of Minneapolis, Omar Fateh. hadallada qiimaha badan ee bartaas Ilhaan Cumar ay ka jeedisay qofkii xog ogaal ah uu garan karaa qof kale na waxba laga weydiin maayo qofkii xog ogaal waxaan ka wadaa qofkii state-kan fahansan iyo waliba siyaasadda qaabka ay u jirto iyo waxyaabaha jiro oo rasmiga baahiyaha rasmiga ah ee ka jiro gobolka Minnesota iyo waliba gaar ahaan magaalada hadda mayorkeedii lagu hardamahayo ee Minneapolis dhibaatooyinka dhalinyarada ay ka maraan ubarka dhibaatooyinka housingka waxa dareemi kara ardayda jaamacadaha iyo collegeada ayaa dareemi kara in affordable housing ay jirin mar walba ay ka calaacalaan guryaha la degahayo quality-gooda uu aad u hooseeyo aysan koronto jirin isheega aysan talaagado ama fridgeero aysan jirin ama refrigerators aysan jirin iyo qaboojiye iyo waxyaabo noocaas ah sidoo kale aysan nadaafad iyo waxyaabo noocaas ah ka jirin oo guryaha noocaas ah inay degaan ay ku qasbayso maadaama affordable housing uu jirin oo la raqiisinin guryihii ama dadka ka kireenahayay renterska ah hadii ay arday college noqdaan iyo hadii ay noqdaan dadkii magaalada soo galahayay ee wadamada overseas-ka ka imaanahaya ama soo galootiga wax loo yaqaano aan waxba lagala hadlin ama aan la sharciyeenin any kind of law oo ku saabsan arintaas housing ah waxa ugu weyn oo caqabada ah oo hadda Jacob Frey looga tabaanahayana ay tahay in haba yaraatee dhinaca housing-ka waxyaabaha basic need-ka ayay ka mid tahay shelter ayaa ka mid ah ama hoyga ayaa ka mid ah marka food iyo sidoo kale iyo caafimaad iyo waxyaabahaas way soo isgalayaan laakiin iyo waxbarasho secondary ayay noqonayaan balse iyo police xataa secondary ayay noqonaysaa laakiin waxyaabihii fundamental-ka ahaa ee housing-ka ahaa ayuu ka sii jeedsaday in uu wax ka qabto ninkan Jacob Frey ah laakiin Omar Fateh ayaa hadda ka hor xitaa marar fara badan dhalinyarada ubarka kala shaqeeyay ilaa iyo sharciga la baas gareeyo meelna uma socono dhahay dhalinyarada lagu dhibaateynayo ubarka oo ku dhibaateysan iyo shuruucda iyo waxyaabo noocaas ah asaga oo xitaa mayor ahayn ma u maleynaysaa marka asaga oo mayor ah in arimahaas uu ka aamusi doono ama uu ku gacanseeri doono diwaamaya sidoo kale wuxuu uga duwan yahay ninkan Omar Fateh ah isheega Jacob Frey uu uga duwan yahay in asalkiisu uu Mareykanka ku dhashay wariba magaalada Washington DC ee aqalka cad ee Mareykanka uu ku yaalo taas marka waxay sidoo kale cadeyn u tahay in qabyaalad wax ku saleysan uusan weligiis ku dhaqmin ama aysan ka suuroobin oo Somali ay isku mid u tahay hadda la barbarahayo xitaa maamul goboleed ama maamulada iyo waxyaabo noocaas ah waliba lagu dacaayadeeyay calan uu weefgareeyay ayagii uu sidaas u sameeyay farxadooda uu ka tirinahay Soomaalidii qaar badan oo kamid ah ayaaba ka soo horjeesaday ayaga oo hadallo ka dhageysanayo dad aan xog ogaal u ahayn gobolkan iyo dhibaatada rasmiga ah ee dhalinyarta iyo waliba dadka soo galootiga ah iyo qoysaska Soomaaliyeed ka haysato ninkan hadda currently ah mayorka magaalada ee Jacob Frey hadii aad Minneapolis joogto ma codeysay hadii aad codeysay iyo aad u codeysay waa su'aal Jacob Frey hada u codeysay maxaad ugu codeysay baa su'aal baa agtaalo iyada laftirkeeda su'aal baa agtaalo waad u codeysay Jacob Frey yes laakiin maxaad ugu codeysay waa sabab inay ka jawaabto ayaan filahayaa affordable housing ma uusan sameynin waxyaabo badan oo sharciye ah oo la soo bandhigay sidii ninkii Jamaal Cusmaan ahaa uu sheegahayba uu soo qarxiyay in sharciye badan oo state-ka la rabay loo sii gudbiyo uu city council-ka ishay ayada oo loo soo bandhigay shuruuc badan ay soo qoreen asaga iyo waliba golo deegaan oo asaga la mid ah soo qoreen uu ku gacan saray oo u diiday in uu sharci ka dhigo oo heer state loo sii gudbiyo sidoo kale uu barka inuusan waxba ka qabanin housing-ka uusan waxba ka qabanin waxyaabahaas oo dhan miyaad ku taageersan tahay mise qabiil ayaa ku indha tiray oo ilbax ma tihid
ama ii sheegay maba fahansanidba waxyaabaha la isku doorto oo wixii 4.5 kii Soomaaliya aanu kaga nimid ayaa weli kugu qufulan iyo qabyaaladii iyo nin jeclaysigii iyo waxyaabo noocaas ah waxa loo baahan yahay qaab civilized ah oo ilbax ah in loo fikiro waliba hadii aan dhalinyaranahay hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada qabti commenting noo soo qor muuqaalka like noo saar hadii aad nagu cusub tahay family-ka ku soo biir waan maasantiin